leeyahay Somaliland guul kan maanta waxaan isugu nimay banaanbax nabadeed waanu ku taageerayno walaalaheenna reer Laascaanood ee ciidamada huwanta ee u soo galeen oo soo dalxiis tagay magaaladii dadkii shacabka ay ku noolaa magaaladuna ay ka xidheen iskuuladoodii malcamadoodii jaamacadoodii ay ku sababeen inay noqdaan qaxoontii magaalada ka joogta dibadda halkan maanta ummadda reer Soomaaliland waxay isugu wada timi iyo UK Somaliland Alliance in aan isu soo dhaweyno una hadalno walaalaheenna dhibta loo geystay Somaliland waa mid qabiil ma aha waa qaran waxaana meesha la isugu wada yimeen gacmaha la iswada qabsado lana taageero walaalaheenna reer Laascaanood halkan maanta waxaanu ka samaynaynaa haddaanu nahnay jaaliyadii UK oo 8 magaaloodba ay wada joogaan in aanu muujinno sidaanu uga xunnahay duulaankaa lagu soo qaaday maanta dalka Somaliland khusuusan Laascaanood iyo Sool waxa weeye maanta halkan waxa ku dhan jaaliyadii Somaliland oo dhan magaalooyinkii kala duwan annagu Wales baanu ka nimid Walesna waa halkii laga bilaabay hawsha waxa weeye 44 sano horteed waa July 1988 Alan Michael ninkii ku dhawaaqay buu ahaa in xasuuq ka socdo Somaliland halkan baarlamaankaanu nimid maantana waa 44 sano alxamdulillah wax kale yaan la odhanin baras release-ka uu ku dhisan yahay maanta hawshani waa tan weeye 8 ministerba way haystaan ministerka khaarijigu wuu haystaa ka guduhu wuu haystaa ka golayaashu wuu haystaa madaxtooyadu way haysataa waanu wada diray sababtoo ah dee anigu waxaan ahay senior advisor ministeriga interiorka waxaan ahay coordinatorka governor sectorka ee national developmentka securityga national developmentka coordinatorkeegaan ahay halkan waxa laga wadaa waxa weeye nabadgelyada Somaliland ayay maanta ku dhisantahay qodobka kale ku dhisan waa maxay aynu sheegaynaa in maanta dhawaaqista madaxweynuhu ku dhawaaqay xabad joojin in la wada qaato garaadka ee dagaalka galay ninkaasan masaj wanaagsan u soo diraya waxaan ku sheegayaa garaad darrida iska daa oo calool xumada iska daa oo xumaanta iska yaree oo dadka la heshii waxa doonayso isaaq Jabuuti buu madax ka yahay wasiirro ku leeyahay dibitaati buu ku leeyahay agaasimayaal buu ku leeyahay jeneraal ku leeyahay Itoobiya inta alle ku leeyahay daaro Jabuuti wax ku leeyahay gadabursi Jabuuti inta alle ku leeyahay haddana qof walba halku joogo ayuu madax ka yahay waar ilaahay ka cabso oo shaydaanka iska naar oo garaad darrida jooji garaad hagaagsan ma too dhiiga daadanay ee caruurta laynayso ee dumarka laynayso qaxinayso bariyaha la ducaysanayo waar dagaalka jooji oo dambiga iska jooji oo aqli la'aanta jooji waxaan maanta joognaa London waxaan soo banaan baxnay inaanu taageerno qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay garaad jaamac garaad cali talada aad talisay waa tala xun tala garaad damay ahayn dadkaan maanta ka barag bixisay ee maanta ka rortay dalkoogii iyo dadkoogii ee maanta qaxoonti ku ah meel ka baxsan dalkii nabadda ay ku ahaayeen maanta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu leenahay waan idin garab taaganahay meel kasta joogtaan waan idin taageersanahay guuleystaan idin leenahay iyo hawada gaaruliheen nimcada gooyahaga calankoodkaaga sudan qalbiskuma elina geeli buu ku yimi imisa ugo'ay ugodgalay halyey imisa ugodgalay halyey iyo hawada gaaruliheen nimcada gooyahaga calankoodkaaga sudan qalbiskuma elina geeli buu ku yimi imisa ugo'ay ugodgalay halyey imisa ugo'ay ugodgalay halyey